waa danaynayaan dowladaha gobolka oo dhan dabcan waan la soo hadalkaadnay waa u sharaxnay waana iska fahmay insha allah. arrintan saldhigga imaaraadka ee aad isla soo qaadeen wafdigiinan iyo mas-uuliyiinta Ethiopia waa arrin walaac badan ku abuurtay xataa dadka reer Somaliland iyo xisbiyada mucaaradka ahba. inta aad Ethiopia tagaysaan ee aad iyaga u soo sharaxaysaan miyaanay ka habboonayn inaad marka hore dadkiina iyo axsaabtiina iyo golayaasha shacabka u sharaxdaan? runtii ujeedadu ma ahayn socdaalkeedu inaan cid ugu sharaxno arrinka saldhigana wax badan baa laga hadlay su'aalo la iska weydiiyey marka runtii wax ku cusub maaha bulshada. waxaan rajaynayaa in runtii ay fahamsan yihiin xaaladda halkay marayso. waxaanu ka korin wax kala mahay ilaa imika waa codsi dowladii noo keentay wax heshiisa weli lagama gelin weli wax mataqaanaa gorgortana lagama wada gelin waa un codsi iyo mataqaanaa ide gorgortanka oo bilowna weli lama bilaabin laakiin runtii bilowna. laakiin walaaca ay dadku qabaan iyo xisbiyada mucaaradka waxa kamid ah oo ay leeyihiin dawladda Imaaraadka Carabtu waxay ka tirsan tahay isbahaysiga Sacuudiga hogaaminaya ee Yemen duqeynta ku haya marka waxay fududeynaysaa saldhigani in duulaan lagaga qaado Yemen halkan. wasiir ka tirsan xukuumadda aad ka tirsan tahay oo wasiirka madaxtooyaduna wuxuu u sheegay warbaahinta maxalliga in Somaliland sunni tahay oo ay dhan tahay ma sidaas aad tihiin oo dhinac baad ka tihiin colaadan ka socota gobolka? dadku kama jireen Somaliland ay sunni tahay Soomaaliya oo dhan baba laakiin Somaliland kuma kala jirto Soomaaliya ma yahay laakiin markay qayb ka noqoto hadiiba ay dhacdo inaad isla afgarataan Imaaraadka oo saldhigga siisaan faa'iidada ay Somaliland ka helayso iyo waxaad dhaafsanaysaan muxuu yahay? tikada waa la socotaa wadamo badan ayaa saldhig u ogolaaday waddan kale uu ka samaysto mid walba waddan wada soo dantiisa raacanaya marka kulli waxaan dan loo arkaynin in jirto ummadda iyo dadka cidina mataqaana heshiis kala geli mayso. warbaahinta maxalligii Sacaadad al-Wasiir waxay sheegaysaa in madaxweynuhu uu khudbadayn doono labada gole ee baarlamaanka Somaliland oo ujeedaduna ay tahay inuu soo hordhigo heshiiskan aad ku sheegtay qabyada ee dalabka ah ma jirta arrintaasi? heshiis kasta oo ay dawladdu gasho marka hore baarlamaanka waa loo soo gudbin jiray maxaa hadda keenay inuu tan madaxweynuhu labada gole isugu yeedho oo kala hadlo? ma muhiimad gaar oo ay isaga u leedahay baa jirta mise culaysaan loo baahnayn oo sharciga ka baxsan buu saarayaa? madaxweynaha cidii dowladda in heshiis la geli karo marka dastuurku wuxuu qeexayaa heshiisyada qaar in loo baahan yahay guriga wakiiladu inuu ansixiyo la hor keeno markaan qaadanay talo sharci waxay noqotay in labada gole lagaan. marka waa heshiis aad gasheen ma aha dalab sidaad hore u sheegtay? waa dalab inta weli heshiis lama gelin.